cawaysi wanaagsan kula soo dhawaada xarunta telefishinka BBC ee London wararkaan idin hayno waxa kamid ah ugu yaraan 20 qof ayaa lagu dilay qaar badan oo kalena waa lagu dhaawacmay weerar ay kooxda al-shabaab ku qaadeen makhaayad ku taala magaalada Muqdisho Paris guud oo madax bannaan ayaa la amray in lagu sameeyo dabkii qabsaday daar weyn oo ku taal London iyadoo tirada dhimashadu ay sii kordhayso rajana aan laga qabin in cid loo la helo Falastiiniinta Gaza ayaa ka baqaya in guryaha cusbitaalada iyo wadooyinka aan loo dhisi doonin haddii lacagta Qatar ay ka joogsato waayo khilaafka ka dhaxeeya Qatar iyo wadamada kale Carabta 25 qof ayaa lagu dilay in ka badanna waa ay ku dhaawacmeen markii kooxda al-shabaab ay weerar ku qaaday makhaayad ku taala magaalada Muqdisho kooxda ayaa in muddo ah dad ku dhaxaysatay goobtaasi iyadoo dagaal saacada qaatay uu dhex maray iyaga iyo ciidanka ammaanka ugu dambeyntii halka waxa lagu dilay 5 nin oo ah raggii weerarka soo qaaday wariyaha BBC da Suhayba Maxamed Badqas oo kala socotay Nairobi ayaa warbixintan nooga soo dirtay waxay soo raadsadeen afur casho iyo madadaalo kale balse waxa ay la kulmeen weerarkan ay kooxda al-shabaab sheegatay oo lagu qaaday goobtii ay ku sugnaayeen oo ahayd maqaayad laga cunteeyo innaga oo afurka daqiiqado kadib markaan afurnay kafe iyo shaah dalbanay aniga qaar asxaabteeda ka mid ah oo saaran qaybta sare ee Peace House ayaa waxaa la kulannay qarax aad u weyn oo derbiga Peace House lagu soo dhuftay alxamdulillaah ilaahay waa naga samata bixiyay waxaana nama gaarin dabadeed waxaan isku daynay inaan nafsadeena badbaadino waxaan u cararnay dhanka iyo dabaqyada sare ee meesha aan saarnayn korkeeda oo ka boboodnay qarax aad u xoogan ka bacdina waxaan noo xidhay rasaas iyo tacsiir aad u xoogan runtii jawgii wuxuu noqday jawi aad u bedelan man qiyaasi karo markii kulay waa dareemi karayaa in qaraxaas jugtiisa oo dhacay iyo xabadaha gudaha ka socda dareemay waxaana kamid ahay raggii ka badbaaday meesha ee derbiga ku ka booday baabuur ayaa bilowgii la qarxiyay kadibna rag hubaysan ayaa xoog ku galay hoteelka kuwaasi oo saacado haystay kahor inta aysan ciidamada amnigu dilin kooxdii weerarka soo qaaday in ka badan 20 qof oo ku dhimatay weerarkan waxay ahaayeen dhalinyaro ay ka mid yihiin arday rag iyo dumarba leh madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si kulul u cambaareeyay weerarkan sidan ayaa dhalinyarada ka timi qurbaha iyo kuwa horay halkan u deganaaba ay ugu soo madadaalo iyo xasaawo tagi jireen halkan maalmihii ugu dambeeyay hub ururin ayaa ka socotay magaalada al-shabaab ayaa inta badan kordhisa weerarada inta lagu jira bisha Ramadaan inkastoo weerarkan uu yahay kii ugu horeeyay ee noociisa ah tan iyo bilowgii bishan Ramadaan Suhayba Maxamed Badqas BBC Nairobi haddaba saameyn intee leeg ayay qaraxyadani ku yeesheen ganacsatada iyo ganacsigooda waxaan su'aashaasi weydiiyay Cali Xirsi Sheekh oo ah ganacsade Soomaaliyeed oo hadda jooga magaalada Nairobi qaraxyadan saameyn badan ay ku leeyihiin qofkii ganacsiga abuurayay ganacsigan abuuray laba khasaare ka soo galayso ah xabba niyad ahaan inuu ganacsiga ka niyad jabo oo ganacsi kale abuur lahaa ama kii hadda uu wada ka laabtona waa saameyn bay ku leeyihiin oo qof wax ku abuurayaan dhibaato xagga qalbiyana iyo mid dhaqaale dadkii macaamiisha ahaa ee ku soo dhiiran lahaa inay xagga taan qofkan ay dhiirigeliyaan oo ganacsiga hormariyaan inay ku soo dhiiradaan imaanshaha xarumaha ganacsiga way saameynaysaa inta waxa kale oo aan weydiiyay Cali Xirsi bal sida ay u badbaadin karayaan macaamiishooda iyo ganacsigoodaba iyo sababta xal ugu heli laayihiin weeraradan mar walba soo noqnoqonaya wallahi waa su'aal muhiim ah laakiin waxaan is leeyahay arintaas inay la weydiiyo kaliya ganacsada maahan waa wadan dhibaato ka jirta wax badan oo ammaankiisu u sugnayn oo aan kaliya la bartilmaamaysan xarumaha ganacsiga ee si guud loo bartilmaameysado xarumo badan iyo xarumo muhiim ah iyo meelaha horumarka ka socdo sida darteed waxaan is leeyahay haddii qolada ammaanka gudaha ay dadaal badan qaban lahaayeen ama ay si fiican ula shaqayn lahaayeen qolooyinkeena ganacsatada ah arinta waa laga guul gaari lahaana macaamiisheena nabadgelyadooda inaan damaanad qaadno horta wax aad u muhiim ah laakiin waxaan rabnaa inaan ogaano macaamiishu waa muwaadiniin wadanka u dhasheen si guud ammaanka wadanka ay hoos tagaan annaga waxaan la ka rabaa maadaama ganacsi kasta uu leeyahay ilaalo u gaar ah in ilaaladaasi ay dadaal badan muujiyaan
in ilaaladaasna waxaan ku tala jirnay inaan tayayno hadday ahaan lahayd xagga tiradooda oo macnaha tira ahaan u kordhino ama xagga tayada aan ka kordhino xiriir fiicanna ay la sameeyaan qolada ammaanka gudaha. mahadsanid cali xirsi oo isagoo Nairobi joogay ii waramayay faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan weerarka magaalada Muqdisho iyo kuwa kaleba waxaad ka heli kartaa bogga BBC Somali adigoo ka galaya moobilkaaga. Ra'iisul Wasaaraha Britain Theresa May ayaa amartay baadhis madax bannaan in lagu sameeyo dabkii burburiyey dhismihii galbeedka London kaasi oo laga cadhooday sida ay wax u dhaceen. dabdamiyayaasha ayaa sheegay inaanay filaynin helista cid kale oo nool 17 ruux ayaa la xaqiijiyay inay dhinteen iyadoo tiro kale oo badanna la la'yahay. nashqadda dhismahan dabaqa ah ayaa hadda baadhisi ku socotaa. sida caadiga ah tuubada dabku waxay gaadhi kartaa ilaa 15 mitir. dherarka dhismaha Grenfell waa 67 mitir lagumana rakibin biyo firdhiyayaal. baadhayaashu waxay eegayaan cufka dibadda dhismaha iyo dahaadhka ilaalinaya daboolka. daba badan oo dunida ka dhacay ayaa lala xidhiidhiyaa dahaadhka guriga lagu xidhay inuu sababay. qaraabada iyo saaxiibada dadka la la'yahay ayaa weli raadinaya bal inuun wax macluumaad ah halka dabdamiyayaashuna ay sheegeen in toddobaadyo ay qaadanayso baadigoobka meydadku. jawaabta ay bixiyeen bulshooyinka ay Soomaalida ka mid tahay waxay ahayd mid aan caadi ahayn. saacado kadib markii dabka uu bilowday ayaa la bilaabay in la aruuriyo kaalmo la gaarsiiyo dadka uu dabkaasi saameeyey. waxay ahayd arrin argagax leh waxayna sababtay in la arko dadkii oo mid kasta uu wado alaab. halkan waxaa la isugu keenay alaabta lagu sadaqaysanayo dadkii ku waxyeeloobay dabkii dhismaha Grenfell habeen hore baabi'iyey ilaa shalay oo dhan la deminaya ilaa haddana qaybo ka mid ah aan la gaarin. marka dad badan oo Soomaali iyo qowmiyado kale isugu jira halkan isugu soo baxay alaabtan u sadaqaystaan. halkan waxay isugu keeneen dhar caruurta loogu talagalay kabo iyo bustayaal loogu talagalay dadka inay wadaan oo qawowga iskaga celiyaan iyo dabeysha dhacaysa maadaama dad badan guryo la'aan ay ku dhacday oo guryahooda ay gubteen. waxaan kaloo ka mid ah waxyaabaha meesha la isugu keenay cunto ay dadka isugu keeneen lacag iyo dadka qaar sadaqaysanayaan. masaajidda iyo kaniisadaha ayaa ka mid ah meelaha kaalmada ka qayb galayo waxayna qeexaysaa deeqsinimada. waxay u muuqataa in alaabta dadka ay bixiyeen ay buux dhaafiyeen meelaha la isugu geeyey. marka waxaa la ururiyana waxaan u wadnaa inaan u geyno dadyowgii ku dhibaatoobay dabkii ka dhacay Latimer Road oo dad badan ay wax ku gaadheen. weli waxaa jiro dad la la'yahay oo dadkoodii ay doondoonayaan. xarumaha qaar ee muslimiinta ee Shepherd Bush waxaa isugu tegay dad ay dad ka maqan yihiin balse ma doonayaan in la duubo. mid ka mid ah dadka caawinaya ayaa sidan ii sheegay. maadaama meesha aan u furnay dadka dhibaatada soo gaartay oo aan naga fogeyn dhismaha dhibaatada gaartay guriga gubtay uu agteena xafiiskeena ku yaalo dad badan oo dadkooda lostagareeyeen ama dadkoodii lumiyeen ilaa hadda la yahay ama ka dhinteen ayaa iskugu imaanaya inta oo si ay u baroortaan dadkooda ugu baroortaan. waxaa sidoo kale jiro caro sii kordhaysa oo ku saabsan dabkan. caro ah in dad masaakiin ay ku waxyeeloobeen dhisme uu lahaa Councilka London. caro ku saabsan in digniino hore la iska diiday. waxyaabaha ka soo daatay dhismaha gubtay ayaa meel kastaa daadsan ayadoo su'aalo badan ay taagan yihiin. maxay tahay sababta sida degdega ah ugu faafay dabka? dabkan waa kii ugu darnaa ee xilligan casriga ah ka dhacay UK wuxuuna murugo ku reebay dad aad u badan gaar ahaan kuwa ku nool dhismayaasha dhaadheer. bal markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka maanta. madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa baadhitaan lagu sameynayaa bal inuu hor istaagay cadaaladda iyo in kale sida ay qorayso saxaafadda Mareykanku. dambi baadhaha gaarka Robert Mueller ayaa ballaadhiyey baadhitaankiisa isagoo eegaya bal in madaxweynuhu eriyey madaxii FBI-da James Comey si uu uga hortago baadhitaanka doorashada Mareykanka iyo faragelinta Ruushka. Trump ayaa isagu dafiray eedeemahani. madaxweynaha Ruushka Putin ayaa sheegay inaanay wax dhibi ku jirin in Ruushku isku dayo inuu saameeyo maskaxda iyo ficilada Mareykanka laakiin wuxuu dafiray inuu soo farageliyey doorashada Mareykanka ee sanadkii hore. Mr. Putin ayaa u sheegay dadka la soo hadlayay barnaamijkiisa telefoonka loo soo diro waxa uu sheegay in Ruushku fikirkooda cabirayaan. Shiinaha ayaa hawada sare u diray teleskoob ama diirad nidaamka X-ray-ga ah.
7 sannadood kadib markii la qorsheynayey cilmi-baadhayaasha ayaa rajaynaya in howlgalkan oo loo bixiyey xogtii guduhu in lagu ogaado tamaraha qarsoon ee ku jira hawada sare iyo waxyaabaha hawada sare dhex dabaalanaya. hay-adda carruurta adduunka ee UNICEF ayaa sheegtay in 5 carruuraba mid ka mid ah saboolnimo ku nool yahay waddamo badan oo iska ladan. warbixintooda cusub ayaa sheegaysa inaan lacag badan oo ku soo gasha aanay micnaheedu ahayn inaad nolol fiican ay ku horseedo. waxaanay ka hadleen dhallaan badan oo cudurrada dhimirka ka cabanaya iyo kuwo cayil dhaafay oo ku nool 40 dal ee ay daraasadda ku sameeyeen. qatar waxa ay gashay heshiis 12 bilyan oo dollar ah oo ay kaga iibsanayso Mareykanka diyaarado dagaal inkastoo ay jirto dhaliisha Donald Trump uu soo jeediyey ee lagu eedeeyey taageeridda argagixisada. saxaafadda ayaa sheegaya in la saxeexay heshiis 36 diyaaradood F-15 ah oo 12 bilyan oo dollar gaadhaya. Pentagon-ka ayaa sheegay in iibkaasi uu kor u qaadayo iskaashiga military ee ka dhaxeeya Mareykanka iyo Qatar. iyadoo xiisadda gobolka ee Qatar ay sii xumaatay ayaa haddana Falastiiniyiinta Gaza ka baqayaan inay waayaan saaxiib iyo deeq-bixiye weyn. 5 sano ee la soo dhaafay Qatar waxay bixisay 100 milyan oo dollar waxayna ballan qaaday inay intaa in ka badan dhisto guryo, Gaza, cusbitaallo iyo wadooyinba. Cusmaan Cabdi Xasan ayaa inoo haya. waa mid ka mid ah dhismooyinka ugu cusub Gaza. magaalada Sheekh Xamed waxaa maalgeliyey waddanka Qatar iyadoo loogu magac daray hogaamiyaha Qatar Sheekh Xamed. waxay hoyi, iskuullo iyo meel doogleba u noqotay qoysaska saboolka ah ee Falastiin. balse suuragal ma tahay in xiisadda u dhaxaysa Qatar iyo waddamada khaliijka ay shaqada halkan joojiso? maxayse uga dhigan tahay xaafadaha weli la tiicaya dagaalkii dhex maray Xamaas iyo Israa'iil? Qatar waxay dib u dhistay guriga burburay ee Moxamed Shamaali. noloshu macno ma lahan halkan haddii ay Qatar joojiso dhaqaalaha, ayuu yidhi. Qatar oo keliya ayaa garab taagan Falastiiniyiinta. Qatar ayay wax ku samaynayaan, balse tani waxa ay dhaawacaysaa Gaza. waddanka qaniga ah ee khaliijka ku yaalla ayaa deeqda ugu badan ku bixiya dhulka Falastiin. waxay bixiyaan qarashka waddooyinka cusub, waxayna bixiyaan shaqooyinka aadka loogu baahan yahay, iyaga oo sare u qaaday nolosha joogtada ah. ilaa hadda amiirka Qatar waa hogaamiyaha keliya ee booqday Gaza iyadoo ah Xamaas halkaasi ka taliso. waxaa waddanka hadda lagu eedeeyey inuu argagixisada taageero uuna xasilooni darro ka wada gobolka, taasi oo ah eed ay beeniyeen. xaaladdu ma kala cadda. kolba waxbaanu Sacuudiga ka maqlaynaa. waxaanay u muuqataa inay Qatar ku eedeynayaan inay caawiso Xamaas, dabeetana ay rabaan inay ciqaabaan. sadaqada Gaza la siiyo oo uu ku jiro masjidkan ayaa ka dhigtay Qatar awood gobolka ka jirta. hadda Xamaas waxa ay isku dayaysaa inay cadaadiska ka yarayso maalgeliyahooda. qaar ka mid ah hogaamiyaashoodii dooxa ku noolaa waa isaga baxeen. waxayna halkan Falastiiniyiinta ay muujinayaan sida ay u garab taagan yihiin, iyaga oo rajaynaya in aysan horseedin khilaaf dheeri ah oo waxyeello keenaya. iminkana haddaynu eegno xagga ciyaaraha, kooxda ku cusub horyaalka Ingiriiska ee Huddersfield Town ayaa 12 milyan oo pound ka bixisay ciyaartooyga Manchester City ee Australiyaanka ah Aaron Moy. Moy oo 26 jir ah ayaa dayn kula joogay Huddersfield, waxaana u ciyaaray ciyaartii kama dambaysta ahayd ee Reading ay la ciyaareen, taasi oo ah tii u horseeday inay ka mid noqdaan horyaalka Ingiriiska. Southampton ayaa eriday Claudia Puel isagoo xilli ciyaareed qura xilka tababarnimada u hayay. 55 jirkan Faransiiska u dhashay ayaa juuntii hore la magacaabay isagoo kooxdaasi gaarsiiyey kaalinta 8aad ee horyaalka, inkastoo 16 ciyaarood laga badiyey. waxaa kaloo ay gaadheen League Cup-ka finalkiisa oo ay ugu dambeysay 2003. ugu dambeyntiina bal muuqaalada nala daawo xagga ayaa Fiji naga soo gaadhay halkan oo ciyaarta serafka mawjadaha la dulmara tartankeedu ka socday. tartamayaasha qaarkood ayaa xirfado aad u cajiiba muujiyey. Matt Wilkinson oo Australian ah ayaa horyaalka haleelay. intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkeenni caawa. waad ku mahadsantihiin daawashadiinna. intaaynu mar kale dib u kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.